Restaurants and bars close early in Rome as Italians try to get used to caafimaadka dawladda UK oo kamid ah dadkii u dhaqaaqayay ama caafimaadka kala wararka dheeraadka helana waxa sheegayaan in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump looga shakisay xanuunkan inuu qabo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل من أكتمل كتودون دعلك جوكتان ومركز اليوتيوب channel كنا مركز دكتور نصور مرتين قاعد سديته وحنا ليه كسب بير channel كمان نقطة أصحاب طال كانوا وركي وبحنا وجسوا قدنا كلا دوينة كوسا صفنك يا عرما عالم كل أنت بدل هالك channel كوحنا كسي دينا ممكن بينا عرما صفنك يا عرما فنقيت صفنك بس لكن ما أنت تصدق وكدون تارك كهذا لنا ما أنت حكى لنا وبحنا كوسا بسن عذر كورونا فيروس بريه جدا بيسا وأنت وين كل شيء عالم كالله هنا جاي يهرترنا عادي هذا حلو وكل وطن الإسلام كدمان تود واحد اللي هاي كحيو وحاجة هذا لما أنت حنون كاس وضمن العالم كاستمون كوي أجلس تشاينا صوت كوريا إيطاليانية ويجي جدا بإيطاليانية ورجعت تمام كلام هم مش فراب أنا عارف قصة هايو سير كعافمات كده دلوقتي UK وكم ده ضد كيور علاقة أما عافمات كسو كل برية ربوطة يسوي كل شقاها سو توت كل شقيقي أي هرس من الله الحنون كان سيشع سي TV wararka ee lagu magacaabo Euronews muuqaalka iyo sidoo kale ku saabsan in wasiirka iyo caasimadda dalka Talyaaniga ee Roma oo gabi ahaanba haawanayso cid dhaxmarsa aan jirin baniyar soo arka Restaurants and bars close early in Rome as Italians try to get used to a sweeping government lockdown as part of measures to stop the spread of the new coronavirus. Infections in Italy have topped the 10,000 mark, more than anywhere else but China. The day went really bad for businesses, and this mandatory closure at 6 p.m. is worsening the situation. Italy has also found itself increasingly sealed off as other countries have sought to keep infections contained. Neighbours Austria barred travellers from crossing the border without a medical certificate. Slovenia has closed its border with Italy, and Albania has banned Italy air and ferry traffic. Numerous airlines have either suspended or temporarily stopped flights to and from Italy, while Britain, Ireland, Hong Kong and Germany have strengthened travel advisories urging their citizens to leave. Virus-related disruptions are happening across Europe. In Spain, on the eve of school and university closures, shoppers emptied supermarket shelves. I came to do a normal shop, and what I found is like it's the end of the world. وهاجاك وادركتين sidoo kale Talyaaniga waxa la baajiyay sirooyada oo maanta lagu dhawaaqay guud ahaan bayna la ciyaari karin inta xanuunkan mar loo helaya mas'aliga yar sidoo kale 60 milyan oo kamid ah dadka Talyaaniga ayaa lagu hor istaagay ama la hakiyay dhaqdhaqaaqooda sidoo kale madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Talyaaniga wuxuu amray cid ka soo bixi karta guriga inaan jirin sidoo kale wararka dheeraadka helana waxa sheegayaan in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump looga shakisay xanuunkan inuu qabo si wararku sheegayaan waxa qoray wargeyska lagu magacaabo New York Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka عاصمة مقالة وجود كبدان لا يكون تمام كرك صباح أمريكا كان نيويورك أي شيء مدحونا هذا الأمريكي كدونالد ترامب لوجش كيسين وحنو كان قواص دو كلا ويجي قدام بيه أما كنت تمام كلا أفرت عش قدام بيه إنه كتير وين قصدي وكده جاي مدحتوه يدا ولا شيء جورك دارك كود ريان إن حنت ورك إن تدكو تجي أما بخانية أنا لو قلت لك إني كبوقتن أما أي سكستبها هاتي لود حيسي مراد إن sidoo kale madaxweynaha dalka China ayaa isaguna booqday magaalada Wuhan ee caasimadda dalka caasimadda Yangon magaaladii uu ku horeeyay xanuunkan uu ka soo bilaabay ku tilmaami karno iyadoo dawladda China ay sheegayso in xanuunkan intiisa badan maar loo soo helayo oo soo yaranayo dadka ku dhacay xanuunkan ee dalka China sidoo kale maalinimadii shalato ee Isniinta ahayd ayaa lagu tilmaamay mal lagu magacaabay ama la sheegay in ahayd maalintii ugu dhaqaalaha hooseysay tan iyo 2008 suuqa caalamka markii hoos u dhac ku yimi sida ay sheegtay wakaaladda wararka iyaduna ka faalata arrimaha suuqa caalamka sidoo kale ayaa sheegtay iyaduna in suuqa hoos u dhac ugu weyn ee caalamka ka dhaca ilaa 2008 markaas oo duufaano baan ku dhufteen qaaradda Aasiya qaybta bariga oo lagu tilmaamay in dad badan ka kulaadeen markaas oo soo wajahay caalamka suuq jari aad iyo aad u ballaaran inuu markii labaad 2020 ku dhuftay maalnimadii shalayta ahaa taasoo lagu magacaabay maalintii Black of Market ay sida afka qalaad ay ku sheegeen madaxweynaha dalka Boortaqiiska ayaa isaguna karantiimaysan ama sida la sheegayo ku jira guri
kadib markii uu sagaal dhalinyaro oo ka soo jeeda dalka China oo lagu marti qaaday qasriga madaxtooyada mid kamid ah uu salaamay kii dabeetana laga helay xanuunka coronavirus madaxweynaha ayaan la cadeyn ilaa laan inuu xanuunkan qabo balse laakiin waxa la sheegay madaxweynuhu inuu ku jiro qasriga madaxtooyada shakisiina iyadoo lagu wada muddadii baarida oo ku tilmaaman 15 cisho sidoo kale dalka Turkiga waxa la sheegay xanuunka dad kamid in laga helay meelaha kale aad iyo kale loogu maleynayo inuu yaani saameyn badan ku yeeshay waxa kamid ah dalka Masar balse la sheegayo wadamada Islaamka inuu kamid yahay meelaha xanuunka inta ugu badan ka soo ritay dawladda Sacuudiga ayaa markii ugu horeysay iyaduna baajisay isu socodka xaramka iyo sidoo kale in la booqdo markii ugu horeysay caalamku markii ugu horeysay la arko sawir halkeed ka muuqanaya xaramka oo cidlo cid joogta aan joogin sidoo kale dawladda Sacuudiga waxay sheegtay inay gabi ahaanba baajisay khudbadii jimcaha hadii ay 30 mir in laga dhigay 15 mir oo say hore u sheegeen amaanka arkay website caalamku warbixinaha qorayeen wadamada bariga dhexe dhamaantood iyagana waxa la sheegayaa in goobaha waxbarashada caafimaadka iyo sidoo kale jaamacadaha laakiin muddo gaaraysa 15 cisho ma aha bariga dhexe oo kaliya waa caalamka 15 wadan soo warbixinteen hore uga soo hadleen socodina oo aragteen aad iyo aad mahadsantiin inta sanad soo badgayay kulamo wanaagsan markay halkan fan iyo warbixinaha ku saabsan fanka iyo sidoo kale finaanteenu yaani bulshada mar walba soo gudbino bas laakiin waxa caalamka markii iga taagan in bulshada la qaybsano ayaa aad iyo aad wanaagsan aad iyo aad mahadsantiin markii soo dinida caalamka waxa la umada Soomaaliyeed dhamaantiin Ilaahay ha naga badbaadiyo xanuunkan aad iyo aad ka khatarta badan leh run ahaantii waxa aad iyo looga xumaaday weeye sidoo kale magaalada Hargeysa waxaan ku arkay oo ku suganahay ama aan hadda joogo dad badan oo dhex marayo xiran maskaraha afka lagu xidhay ee lagu talagalay xanuunkan laga xidho balse laakiin waxaan ka codsan lahaa bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadamada Soomaaliyeed degta dhamaantood in ay inoo saadin xanuunkan inuu Ilaahay naga badbaadiyo oo inuu ka ducaysano insha Allah badaan karim sida culimadu sheegan inta badan nadaafada lagu dadaalo salaadana la badiyo aad iyo aad baad mahadsantahay balka dunida caalamka inta tan soo dhigay guys hadad muuqaalkan ka heshay waxaad iga codsan hadad muuqaalkan ka heshay waxaad ka codsanay guys inaad si share galayso oo wadaagtaan asxaabtiina gaaraysan bulshada Soomaaliyeed iyo cid kasta xanuunkan inay ka ducaysato ama yaani ha aad iyo aad baad mahadsantahay markii dunida caalamka waxaan leeyahay see you next day insha Allah badalay karim